Soomaalida qaar hadday jaanis yar oo intaas la kugu helaan Allah ku arguriyo war isku xishooda Shaadiye Sharaf waa gabar Soomaaliyeed waa fanaanad Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed oo sharaf leh saaki TikTok furayo ilaa iyo had ertaan horay u wad gadaal u wad horay u wad gadaal u wad Shaadiye Sharaf leh wadeen maxaa hadan laga wada waa laba qoraal oo caata ah iyo hal video oo aan ceeb lahayn oo qadarkeeyo ay kula jirto war ma isku xishootiin waligin Shaadiyood qalad idin kama galin waa gabar miskiin oo Soomaaliyeed socialkaas iskaga jirto niiga qosliso muuqaal kasta soo dhigta aad ku qosli jirteen tan kaleeto qofka bani aadanka ah wixii u fiican iyo wixii xun asaga yaqaan qofka bani aadanka afariisa gaarka afraha laga qaada okay waligiin waxay soo dhigtay waa ku qosli jirteen weyniga farxi jirtay cid ay gooni ula dagaashay ma jirto cid cadowtinimo u qabtay maxaa way maanta TikTok meel kasta gabadhaas waa gabar sharaf leh oo Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed ah ka leexda dada caadi u falanqeynaa subhanallah tan kaleeto ceebta walaalkaaga ah muslimka ah ceeb u leeyahay hadaad aragtaa oo aad ceebtaas daboosho Ilaahay kun ceeb oo adiga leedahay ayuu daboolayaa marka gabadhan awreejinaysaan ilaa hadda wax ceeban aanan uga jeedin walaalayaal ka dhaca takalaadka waxa sameeyana ilaahay idinka qaladkiina ha idin tuso qaladaadka idinka aleedin Allah idin tuso maxaa kartaa war saaka TikTok meel kasto gabadhaas labadeeda qoraal waxa la soo dhigay hal video qadarkeeyo kula jirto waraani waxa ma arkiye walaalayaal hooyo Soomaaliyeed waaye qalbiga loo ilaaliyo